Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Waa mar kale iyo barnaamijkeena dhacdooyinka. Haddaba daawadayaal caawa waxaan ku falaqayn doonaa muddo badan dhagihiina waxaa ku soo dhacayay dhacdooyin ama se dhacdo. Haddaba caawa waxaan falaqayn doonaa dhacdooyinka iyo inta ay u qaybsamaan. Haddaba sida lagu hayo taariikhda wixii ka dambeeyay dhacdadii gurigii Carabta ee ku caan baxay Arab Spring. Dunida waxaa ku dul wareegtay dhacdooyin la siyaasadeeyay intooda badanna loo adeegsaday ujeedooyin kuwaasoo afka qalaad lagu yidhaahdo manipulation. Haddaba haddii aan dib u eegno jiritaanka dhacdooyinka dunida laba meelood ayuunbaa saldhig u ah oo ay dhacdooyin ka shitaal qaataan. Midda koowaad waxa weeye dhacdooyin dabiici ah kuwaasoo si natural ah uga dhaca dunida sida dabaylaha, duufaanada iyo waxa loo yaqaan masiibooyinka dabiiciga ah oo ay ka mid yihiin daadadka iyo wixii la halmaala. Kuwa labaad waa dhacdooyin aan dabiici ahayn kuwaasoo ay sameeyeen bini aadamku amabase bashar sida dagaalada, colaadaha, afgembiyada, xafladaha, maalmaha xorriyadaha loo asteeyey iyo wixii la mid ah. Haddaba si kastaba ha ahaatee dunida waxaa dul meeraya ciddii soo saartay ee faafisay dhacdooyinka kuwaasoo xambaarsan fariimaha siyaasadeed. Sidaa daraaddeed dadku laba wado mid unbay u maraan. Ta koowaad oo ah ka sheekaynta dhacdada lafteeda taasoo ay falanqeeyaan sababta dhalisay iyo wixii kalifay iyagoo ku falanqeynaya hab muuqaal ah amabase qoraal. Maqaalkanna waxa uu jawaab u noqon doonaa amabase uu raadin doonaa weydiinta ah sidee dhacdo cusub u dabooli kartaa dhacdo taagan amabase mid tagtayba. Haddaba daawadayaal barnaamijkan midka xigay intaan ku kulmi doono waa aniga oo idin leh habeenku ha idin wacnaado. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.